بسم الله ربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Welcome to Iqra Institute of Technology. Welcome back again. Today inshallah ta'ala we talk about a topic that is very important to our students around the world. Kusoo dhawaada maanta inshallah ta'ala waxaan qaadan doonaa dhanka iyo luqadda Englishka. waxaana ka hadli doonaa maanta marka mowduucaadii waa muhiim u ah ardaydeena muhiim u ah mowduucaasi oo ah my daily routine. inshallah ta'ala marka casharka ayaan ku fahmi doonaa ama aan ku baran doonaa my daily routine waxaa loola jeedo. my daily routine waxaa la yiraahdaa marka waa shaqooyinka ama shaqada maalin walba aad qabato marka berina haddana isla shaqadaasi ama howlahaasi howl la mid ah aad qabanayso ayaa waxaa lagu magacaabaa daily routine. marka inshallah ta'ala marka aad qeexayso ama aad ka hadlayso shaqooyinkaasi oo adigu si maalinle aad u qabato ayaad isticmaalaysaa marka mowduucani aad ayuu ku anfacayaa. marka aan bilowna marka kadib marka hal mar ayaan aqrin doonaa casharka dhegeysta si fiican kadib ayaan sharxi doonaa insha Allah ta'ala. qofkan wuxuu leeyahay marka my name is Ali, I am a student, hence I follow a simple routine in my daily life. It is almost the same every day except on Friday. I wake up in the morning 6 o'clock. I brush my teeth, my hands and face. Then I go out for a walk and some exercise. I come back at 7 o'clock and take my bath and take my breakfast. After that I read my lesson and do my homework. Then I play with my little sweet sister for 10 minutes and leave for my school at 8 a.m. I always reach school in time. I attend my all classes and I eat my lunch in the school break time. Then I come back home at 2 p.m. I take some food and rest for some time. Then I read Holy Quran. Then I play games with my friends in the afternoon. In the evening I usually read my lesson for 2 hours. I take my dinner usually at 9 p.m. Then I say good night to my parents and go to bed at 10 p.m. I follow my daily routine strictly, but on Friday the routine is different. Sometimes I go to visit my relative's house. In holidays there are a break in the daily routine, but I never break the golden rule of early to bed and early to rise. Regularity in work has taught me the value of time. inshallah ta'ala marka waan sharxi doonaa qaybta ugu horeysan ayaan kasoo bilaabi doonaa inshallah ta'ala aan isla socono. wuxuu leeyahay qofkani ardaygani my name is Ali, magacaygu waa Ali. I am a student, anigu waxaan ahay qof arday ah. Hence I follow a simple routine in my daily life. wuxuu leeyahay anigu waxaan sameeyaa oo aan raacaa simple routine. routine ama shaqo oo fudud ayaan sameeyaa oo aan raacaa. wuxuu leeyahay marka waxaan sameeyaa oo aan raacaa ayuu leeyahay simple routine iska fudud ama howl iska fudud ayaan raacaa oo aan sameeyaa in my daily life nolol maalmeedkayga ayuu leeyahay. marka it is almost the same every day. wuxuu leeyahay marka inta badan maalmaha waa isku mid weeyaan, shaqooyinkaasi aan qabto waa isku mid weeyaan ayuu leeyahay. marka except marka laga reebo on Friday, maalinta jimcaha marka laga reebo. wuxuu leeyahay marka I wake up in the morning. waxaan soo toosaa ayuu leeyahay marka I wake up waxaan soo toosaa in the morning subaxii waxaan soo toosaa 6 o'clock 6 subaxnimo ayaan soo toosaa ayuu leeyahay. marka I brush my teeth waxaan adeeyaa ilkahayga ayaan adeeyaa
my hands gacmahayga ayaan dhaqtaa and face sidoo kale wejigayga ayaan dhaqtaa ayuu leeyahay qofkaani ardaygahi. Then wuxuu leeyahay kadib I go out for a walk. Then wuxuu leeyahay marka I go out for a walk socod ama jimicsi ayaan aadaa and some exercise iyo xoogo jimicsi ayaan soo sameeyaa socod iyo jimicsi ayaan soo sameeyaa ayuu leeyahay marka I come back at waxaan soo laabtaa guriga ku soo laabtaa ayuu leeyahay 7 subaxnimo marka la gaaro ayaan soo laabtaa ayuu leeyahay marka and take my bath wuxuu leeyahay marka waxaan sameeyaa oo aan qaataa waan soo qabaystaa ayuu leeyahay marka and take my breakfast sidoo kalena quraacdayda ayaan qaataa oo aan quraacdaa ayuu leeyahay marka aan ka imaado jimicsiga. After that intaa kadib I read my lesson waxaan akhriyaa casharkayga and do my homework waxaan ka shaqeeyaa sidoo kale homework la ii soo diray iskuulka la iga soo diray ayaan ka shaqaystaa ayuu leeyahay marka. Then kadib I play with my little sweet sister waxaan leeyahay waxaan la ciyaaraa marka inta markaan sameeyo kadib waxaan la ciyaaraa walaashayda iga yar ayaan la ciyaaraa for 10 minutes 10 daqiiqo wax ku dhow ayaan la ciyaaraa walaashayda oo aan ciyaarsiiya marka and leave for my school kadib waxaan aadaa iskuulkayga ayaan aadaa at 8 o'clock am marka la gaaro 8 am. I always reach school in time wuxuu leeyahay marka inta badan waxaan ku gaaraa iskuulka waqtigiisa ayaan ku gaaraa ayuu leeyahay. I attend waxaan haadiraa oo aan ka qayb qaataa my all classes dhammaan xisooyinkayga ayaan ka qayb qaataa ayuu leeyahay and I eat waxaan cunaa my lunch qadadayda in the schoolka ayaan ku dhex cunaa break time marka ay tahay xilliga break time-ka ayaan cunaa ayuu leeyahay marka. Bogaxiga wuxuu leeyahay marka then I come back home at 2 pm waxaan ku soo laabtaa guriga 2 duhurnimo ayaan ku soo laabtaa ayuu leeyahay marka. I take some food waxaan qaataa ayuu leeyahay marka qaar raashina ayaan cunaa and the rest waan nastaa for some time waqti ayaan nasasho qaataa ayuu leeyahay marka. Then I read Holy Quran kadib waxaan akhristaa Quraanka Kariimka ayaan akhristaa. Then wuxuu leeyahay marka I play waxaan ciyaaraa game ayaa ciyaaraa with my friend saaxiibadayda ayaan game la ciyaaraa in the afternoon galbihii marka la gaaro saaxiibadayda ayaan game la soo ciyaaraa ayuu leeyahay qofkaani. In the evening marka la gaaro fiidka I study waxaan bartaa ayuu leeyahay marka oo aan diyaarsadaa my lesson casharkayga for 2 hours 2 saacadood wax ku dhow ayaan casharkayga akhristaa ayuu leeyahay qofkaani ardaygahi waa qof dadaalaya marka. I take my dinner waxaan qaataa cashadayda usually sida caadada ah at 9 pm 9 habeenimo marka la gaaro ayaan cashadayda cunaa ayuu leeyahay. Then kadib I say waxaan leeyahay good night habeen wanaagsan ayaan leeyahay to my parents waalidiintayda and go to bed waxaan aadaa sariirtayda at 10 pm marka la gaaro 10 habeenimo. Wuxuu leeyahay qofkaani marka I follow waxaan raacaa my daily routine strictly daily routine-kayga ayaan raacaa si adag ayaan u ilaaliyaa ayuu leeyahay but on Friday laakiinse maalinta jimcaha the routine is different routine-kii aan soo qabanayay sabti ilaa iyo khamiis aan soo sameynayay wuu ka duwan yahay ayuu leeyahay sababtoo ah wuxuu leeyahay sometimes mararka qaar I go to visit to my relatives house waxaan aadaa inaan booqasho aan ku tago guryaha qaraabadayda ayaan booqada ayuu leeyahay maalinta jimcaha maadaama ay tahay maalin jimca oo marka fasax ay tahay marka. In holidays fasaxyada marka la gaarana waxaa jira break waxaa jira marka kala go ayaa jira in the daily routine oo ku yimaada daily routine-kii aan sameynayay maadaama fasax lagu jiro but wuxuu leeyahay I never break weligay ma jabinayo the golden rule rulka ama sharciga dahabiga ah ma jabinayo of early to bed and early to rise sharcigaasi oo ah inaan waqti hore sariirta aan aado oo aan seexdo habeenkii sidoo kale waqti horena aan soo tooso aan soo kaco waqtigaasi ama rulkaasi ama qaacidadaasi dahabiga marka marna wuxuu leeyahay marka ma jabinayo marka. wuxuu leeyahay marka qofkaani regularity in work joogtaynta shaqada has taught me waxay i bartay
the value of time qiimaha waqtiga uu leeyahay joogtaynta shaqadani oo aan joogtay mar walba aan joogtaynay oo aanan ka leexanaynin marka laga reebo maalinta jimcaha wuxuu leeyahay marka ayaa waxa ay bartay qiimaha uu leeyahay waqtiga marka waqtiga qiimaha uu leeyahay aad iyo aad ay muhiim u tahay inaan ogaano marka casharkii ka horeeyayna waxaan ka soo hadalnayba qiimaha uu leeyahay waqtiga ayaan asigoo dhan uga soo hadalnay marka waxaan rajaynayaa inaan isla fahnay casharkeena maantay oo ingilishka ahaa waxaan idin leeyahay soo dhawaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh